bilow ah maahan waa meel gabagaba ah meesha ay marayso waana la isku dayay wada hadal oo intaasoo fadhi ayaa la qaatay sidaas ayaynu u dhacday intaas ayaan jeclaa inaan uga gudbo su-aashaas jawaabteeda aada u mahadsantahay ambassador waxaan kusoo dhaweynaynaa qadar ismaaciil oo ganacsada ah oo magaalada muqdisho ka shaqeeya qadar ismaaciil oo soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم كده مان والسلامة سوق من قاضي ملشان سيجارة حون سلامة صاحبك يوسف جراد يوسف وحبر بحنا أنت وكده ركسنا هاي أنت بدنا وأرين هذه الصومالية مدرسي بل إنها كسود جدنا لكن قلب كيجا أنا ربوا إنهم كويدي وحيتها دودان بالله وجدي قيبتي يقوم من سنة إذا كسومالي كسود بيران waxaa hogaaminayay gabdho Soomaaliyeed oo aqoon dheer u leh team qurux badan oo ahaa teamkaas oo gender balance badan ka muuqday iyo diilo badan la sameeyay marka maadaama ay arintan ay hal qodob laga doodayay oo ay ahayd baddi Soomaaliyeed si loo soo celin lahaa marka teamka ku jirana ay team ahaayeen xoogaal u ah warbixin badan ka hayeen wax badan soo akhriyeen mar aan dhageysanayay wasiirkii hore arrimaha dibadda wasiir muxuu ahaa prime minister ku xigeen ahayd Fawziya waxay tiri fayl waaweyn aan ka soo qaadnay New York markay ku soo biirinaysay ama ugu baaqaysay Mona Sharma in ay ka qayb noqoto arintan doodan iyo badda iyo hawl arrimaheeda marka dadka noocaas oo kala ah oo genderkana laga arkayay oo Soomaaliya dhanna matalay maxaa keenay xilligan in teamka la bedelo oo team siyaasiyiin kaliya ay matalaan dhanka Soomaalida oo khubarada muxuu ahaa dhanka badda laga tagay sidaan ognahay dad waaweyn ku jiro khubaro ah oo international caalami ah janib ah marka su'aasheedu waxay tahay Soomaaliyeed oo aan dareemeynay inay aqoon iyo karti iyo aqoon u lahaayeen baddi ama dadkii way aragay kale aada u mahadsantahay qadaro ambassador please waad mahadsantahay qadar waa ku salaamay waa su'aal meesha dadka qaar isweydiin karo waa marka koowaad horta waxa weeye style ayaa mar walba jira dowladda waxay ka qayb gelisay civil society bulshada rayidka ayaa laga qayb geliyey dad kala duwan oo gabdho badan ku jiraan ayaa jiray tiimku ahaa anigu waa ka mid ahaa markaasna mar ay gabar ayaana hogaaminaysay oo looyarad ahayd waxa weeye horta 2014 ayay markaas ahayd hadda 2021 macnaha qof walba oo maalintaa ku jiray muxuu maanta ugu jiri waayey lama dhihi karo hadda ka soo qabo markii dacwada lagu dhawaaqay jeedada anigu kuma jirin markii dacwada qaybtan kale la gudbinayay wasiir baan ahaa inaan ka qayb galo munaasib ma ahayn marka marba waxbaa jira dadkii laftoodii ayaa people move on after 2014 ilaa 2021 sanado badan ayaa u dhaxeeyay laakiin waxa uu ku sheegayaa core groupkii looyarada ahaa ee dacwoonay waa teamkii waa sidoodii dadka Soomaaliya matalaya siyaasiyiin kaliya ma aha Saalixi ayaan meesha gareeyay Saalixi waa nin khabiir ku ah samaynta maababka sida maababka loo sameeyo gaar ahaan badana khibrad gaar ah u leh maababka badda iyo soodimaha sida loo sameeyo mid gabarnimo inay ugu laakiin gabdho badan oo aqoon iyo way qurxanay fikradeeda laakiin dhankaas waa lagu dhaliili karaa dowladdu markay soo xulisay tiimka in ay qof ama laba gabdhood inay yihiin tiimka laakiin dadka badankood lagu soo xulay waxa aqoonta u leeyihiin hawsha xoogaalnimada ay u hayaan kiiska iyo la socodkiisii iyo qaybo lamid ah ma jirto qof waa nin halagu daro saa darteed loogu soo daray marka ra'yiga in gabdho ka maqan yihiin meesha waa jirtaa laakiin in la bedelay dadka dhan ama siyaasiyiin kaliya laga dhigay aada u mahadsantahay ambassador waxaan rajeynayaa
su-aashaas loogu jawaabay iyo dadka su-aashaas qabay. Su-aashaas oo 4 nooc ah oo noola soo diray aan social media ka aragnay aan alxamdulilah in qadar oo su-aasha inoo weydiiyey. walaal Nicima soo dhow. Hello. Nicim walaal su-aal ma haddaad su-aal fadlan weydii ama dii kala deeqan u gudbaynaa. السلام عليكم أخوة سلام دمانتين سلامي أنت جروب كسو أساستي دمانتين إن وحاويدين كليا ربنا ويديو إن نينكي هوري أو صومالي جها عبد القوي إن حلك كتجي أحان معناها أن رجقنا ما سبيكرتان معناها إن 90% أو 80% أو 100% رجي intee la eg ayaan qabnaa aada u mahadsantihiin. waa mahadsan tahay Nicima. walaal deeqo adigana su-aashaada raacsii si oo ambassadorka laba su-aalba hal mar ugu jawaabo. waa mahadsan tahay. بسم الله الرحمن الرحيم ومهاتنتي دمانتين انت سو أباب شيء برنامج كان واسدي كرحلي هذا لو بهنا ambassador يوز جراد والسلام يا iyo dhamaan martida meesha joogta warbaahinta maadaama dhinaca warbaahinta uu ambassadorku ahaa waxaan ognahay in marxalada kala gedisan ay soo martay xaaladda badda marka loo fiiriyana dalkanaga warbaahintiisa in dhinaca ka hadalka arrimaha la xiriira badda ay aad ugu hooseeyaan oo qaataan maaragtay wararka ay qorto warbaahinta Kenya marka marxaladan lagu jiro si dadka niyada loogu dhiso loo dhiirigeliyo dadkiina loogu muujiyo in hantidooda ayaga ay xaq u leeyihiin aysan dhacaynin in meel cilaa looga tago haddaan nasiib ka helinin haddana la taagan yahay xilligii ugu dambeeyay oo win or lose ahaa waxaan dhihi lahaa ambassador Yusuf Garaad muxuu yahay doorka warbaahinta ee xilligan adiguna aad tala ahaan waliba aad ugu soo jeedin lahayd. waa mahadsantiin. aad waa mahadsantiin Nicima iyo deeqa. ambassador soo dhow. waad mahadsantahay deeqa ayaan ku horeynayaa oo ah waa maxay doorka warbaahintu xilligan. waad mahadsantihi deeqa iyo Nicima labadiinuba waa laba su-aal. runtii waxa weeye warbaahintu kaalin muhiima ayay ku leedahay. kaalin muhiim ah kuma laha sidii loogu gudan lahaa keyska laakiin waxay kaalin ku leedahay sida aan wax loogu dhimi lahayn. marka laba dhinac isdacweynayaan dhinaca walba taariikhda iyo kiisku muxuu ku bilowday iyo maxaa qalad naga dhacay iyo yaa khaladkaas leh iyo khaladka kii lagu eedeeyo isdifaacaya iyo markii gruubyo loo kala baxo oo bahasho khilaaf iyo siyaasadii laysku hayo ay noqoto iyo arrimihii annaga dhexdeena isku haysan oo kale ay noqoto haddee waa laysmonitor gareynayaa si Jibriil u sheegay waana laga faa'iideysanayaa dhexdeena laga ugaarsanaya oo xogta laga helayaa oo xogtaas lagu karbaashaya dacwada. marka in aan la bixin xog wax u dhima oo aan mawduuc iyo xiise iyo walaal khatar qoray noqon wixii macluumaad bulshada la siinayo ka rasmi ah wixii macluumaad bulshada la siinayo oo ka imaanaya ilaa aqoon-yahano ah wixii la siinayo oo ka imaanaya taariikhda haya oo yaqaano wax khaladka iyo wax wanaagsan. caawa barnaamijka SNTV aan kala qayb galay waxaa ku jiray badda Soomaaliya soo ahaa aqoon-yahan kale wax dhimi kara wax tari kara qof isku soo saar iyo arrintan iska dhexgal iyo isku tuur yuusan u gelin. marka saxaafaddu midda kale waxaa la rabaa labada su-aal sibay isugu xiran yihiin. saxaafaddu markay la hadlayso bulshada education khaladan inaysan bixinin haddana xog khalada aanay bixinin sida ay taa ku keeni karto waxa weeye in ay xaqiiqada ku joogto wixii expectation iyo rajadu sida ay dadkaas
annagu waxaan aaminsannahay bad tahay, waxaan aaminsannahay tiimka looyaradaha inay looyaro difaaci kara yihiin aan weligood laga adkaa. waxaan aaminsannahay dowladdan inay ugu badnay oo kama dambaysa. waxaan aaminsannahay inaan ku guulaysan doono, laakiin waa dacwad kiis maxkamad yaalla oo jaaj halkaa fadhiya oo aan adiga ahayn uu go-aan karayo. marka mar walba cabsi iyo maxaa la yidhaha mar walba dig waa kugu jiraa, oo waa sababta loo diyaar garoobayo, loo tashanayo, qof walba uu up in arms yahay oo laanka aad usoo wada gasheen. marka taas waxay ii gudbinaysaa su-aashii Naciime. 100% qofkii yidhaahdana waa dabaal oo maxkamad wax yaalla oo dad ajaaniba oo looyaro halkaa fadhiya ay go-aan gaarayaan. waa su-aal ayaa ku jirta, mar walba su-aal ayaa taalla. marka kaloo la yidhaahdana haddaanan aaminsan in waxaani ay yihiin dariiq intii tabartu tahay iyo sida ugu wanaagsan ee loo diyaar garoobi karana aan loo diyaar garoobin, dadkii saxda ahaana aan loo xilin, especially xagga looyarada ajnabiga matalaya. hadde ma geynin qoorta ma dhiibaneen oo dacwadeenna ma geyneen maxkamad aan appeal lahayn. marka waxaan aaminsannahay inaan ku guuleysanayno. taas laakiin waa in naloo caddeeyo, nalo kugu dhawaaqo inaan ku guuleysanay. inta ka horeysa su-aal ayaa mar walba calaamad su-aal ayaa madaxa ka saaran. هذا ما باستر أجد حلقة xogaa waxa inaan ku qaso su-aasha ay Naciime weydiinaysay dad badanna wayna soo weydiiyeen chanska ee Soomaaliya leedahay social media ugu yaraan sidii dhinacaas ka imaaday oo chanska iyo waxa ka jira. marka Professor Jibril su-aasha ay Naciime sheegtay iyo kalsoonida oo keyskeena oo aan wadano, what's your view on that? adigana ma nooga jawaabi kartaa taas intaan laba su-aal kale aan ku celinayna ambassadorka? بسم الله والله ما horta soo sheegay doorku ka jawaabay oo aan kalsooni ku qabin maxkamadda iyo haddii aanan ogeyn siday tahay maba aanan aadnin maxkamadda oo maanan dacwoonin. marka Soomaaliya waxay qabtaa kalsooni ah in waxani uu yahay dhaxalkeenii, baddani tahay baddeenii, nidaamka maxkamadda iyo go'aamadii ay gaari jirtay iyo sida caalamka sharcigiisu u qoran yahay badaha oo Soomaaliya iyo Kenya labadaba qaybta ka yihiin. waxa aynu aaminsannahay in aynu guuleysanayno, laakiin sidaa uu sheegay danjiruhu waxa weeye waa arrin sharci ah oo maxkamad oo dood laga gelayo. hadday iska sahlan tahay oo guusha cidda leh horey laga maxkamad lama aadin, intaanoo waqti lama geliyeen, waqti kaloo dheeri laguma sii dareen, taasoo garyaqaana kharash laguma bixiyeen, intaasoo sano marka waxay tahay in aan lahayn wada shaqeyn aan siyaasadda hadayana oo eri oo aan waxba laga dhex dayin arrintan iyada ah. mustaqbalkeeni waa awlaadiisa. marka waxaa la rabaa in aan maaragtay ogsoonaanana waxa kiiska la geeyay inay maxkamad tahay, maxkamadaasna aan rajeynayno inay cadaaladda fajiso, cadaaladana aan ku rinagu ay guuci doonto. waa mahadsan tahay. هذا ماستر جبريل walaal duraan kusoo dhawaaw, and then Xasan gees ayaa ku xigaya. marka abo deqo intaysan rabaa dadka inaan fahamsiiyo shanta qofood shantii su-aalood aan dhahna waan weydiinaynaa speakeryaasha waa especially Yusuf oo way joogaan kusoo doortana waxay ahayd maxaa la dhahaa entrepreneurs, laba gabdhood, laba youth iyo hal youth iyo maxaa la dhahaa 2 people oo media ka imaanaysa. just keep that in mind. waa mahadsantihiin.
Thank you, Abdurano. Go ahead and walaalow hadduu comment yahay please noo soo gaabiya su-aasha noo soo ku hormari karaa mise xasana waa ku hormaro aado yusuf masdor aado su-aalan qaba laakiin waa laga jawaabo malan isla ayadii tiimka meesha noo jiraan waa inuu celiyo waxaan rabaa daqiiqad kusoo koobo waxaa aad loogu celiyey madashan iyo in roolka soomaalidu aad u maqan yahay waxaan rabaa inaan xoojiyo in roolka yaalo qaadanayaan qadiyad inaysan ahayn inay media soomaalidu aad u fahamsan yihiin marka waxaan rabaa dadka ka qaba walaaca in dhinaca nooga horeyso iyo propagandada in aysan jirin oo media soomaaliya role fiican ay qaadayaan oo uu warkooda cad yahay runtii hal arrin oo dadka tirina jiro oo rabo inaan halkan haddii la maqlaayo kenya mediaheeda wuxuu ku coverage English ahayn gaarayso meeshaas in laga fiiriyo aadan u rabi lahaa yusuf runtii aad u fahmaa laakiin media soomaaliya wax ay reebteen ma lahan walba oo la aado oo delegation noo baxo iyo si guud marka looga hadlayo qadiyaddan abo waa mahadsantahay xasano anigoo ah qofkii daytan saas dhahay waxaan jeclaa markii ay maxaa main speakers ay baxaan haddii aan la sii joogi kartid aan taasna aan sii dhexgeli karno adoo raali ah waa mahadsantahay waxaan rabnaa in ay ogaadaan audienska iyo dadka kale panelka wasiirka shaqo badan baa u taalay aad iyo aad baa uga mahad celinaynaa waxaan codsanaa shibina dambeey kadibna aan wasiirka fasaxno dhinaca su-aal ku saabsan waxaana la jooga sidoo kale real marka waa mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantihiin Thank you for that, Umar Aboe. Duran, you have the floor. This is going to be the final question from the audience, and then we will give time to the ambassador to have his closing remarks. Marka Duran Aboe, you have the mic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقعي ودران علي قولد كولومبس. waxaan marka hore horta salaamayaa ambassador iyo khiyaarta kale oo hawsha isku soo dubriday kulli iyo speakerska also su-aasha aan qabaa waxay tahay waa su-aal xoogaa qaarka dunida qaabka waxaad Soomaaliya la hormariyey ku hadlay buu marka su-aashan qabaa waxay tahay xog ka haysaba ma asoo bandhig horumarayo mise maadaama annagu aan dacwadda meesha geysanay saasa annaga mar walba Ambassador kusoo dhawaad, this is the last question. No closing. Duran iyo xasan geesi ka horeeyay xasan geesi waa u salaaman doonaa laakiin Duran hadda guuleed waad mahadsantahay salaanta waan kaa qaaday waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah aad sheegtay jawaabteeda kooban waxa weeye ma aqaan sababta laakiin Kenya markii ay tiri maxkamaddu xaq uma laha dacwadan inay gasho oo aan 4 maalmood fadhinay labada maalmood hore Kenya la dhageysanay
sababtoo ayadaa kayskeeda inay meesha keento la doonayaa kayskeeda ah maxkamaddani xaq uma laha inay fasirto sababtaanay xaq ugu lahayn annaguna waa ka jawaabayna waxaan ahayn sababta ay arrintan ayaan labadii maalmood dambe sheegnay hadda sidaan u fasirtay waxay tahay maadaama annagu aan baddan annagaa leh leenahay in aan caddayno dacwada annagaa wadano kenya waa la dacweeyey iyadu ma dacwoon marka wixii aan ku dacweynay waa inaan sheegnaa baddan annagaa leh iyo kenya faraha kala baxdo sheegashadeedana ha joojiso waa mid meesha taalla marka anugu sidaasaan u fasirtay laakiin runtii waa su-aal madaxay ku jirtay welina aanan cidnana kala hadal optionna in la sameynayo uma malaynayo jadwalka maxkamadda dejinaysa soona jeedinaysa taas waa intaas xasan geesay tifatire xasan geesay waa ku salaamayaa tifatire sare agaasime ayaaba dhahayd idaacadda waxa weeye waa kaalinta anigu waa qabaa waa kula qabaa kaalinta saxaafadda soomaalida dadaal badan ayaa ka muuqda laakiin waxaa jirta horta soomaalidu waa dad nin saaxiibkay beri dambena siyaasad darteed ugu kacay profesor axmed ismaaciil samatar ayaa wuxuu dhihi jiray soomaalidu waa kashiidoo kale kashiidadu waa bashan caana qubta ay dhahaan dadku oo ay fallaaruhu ka taagan yihiin fallaaro yaryar baa ka taagan marka ay is aragto way isku soo orodaa si ay isu dugsato qabowgi markuu ku dhaco waa isu imaanaysaa markay saa isugu timaado ayaa waxa ismudaya fallaaraheedii marka haddana waa kala diriraysaa marka soomaalidu markay arkaan threat ama khatar uga imaanaysa dibadda badanaa way iskaashadaan way isku soo dhacaan way isla midoobaan dhinac bay kasoo wada jeestaan waa dabeecad aan leenahay waa dhinacyada aan ku fiicannahay soomaalinimada ku fiican tahay ayay kamid tahay dhibaato qaran markay jirto dadku waa isu imaanayaan waana midaysan yihiin cugdadna ma kala qabaan marka laga gudbana badanaa iyagu waa ka gudbaan midnimadii marka horta sida hadda loo midaysan yahay iyo sida la isu kaashanayo iyo sida meel walbana lookaga soo wacayo iyo sida meel walba walaalka ila dhashay baa ay lahaa salaada markaan tukanayo sunnada ah oon sujuudayo madaxa dhulka dhigo ayaan ilaahay ka baryaa inuu baddan ugu guuleeyo marka waad garan kartaa qofka meesha markay ka gaarto isagoon dowladdu shaqayn isagoon dowlad shaqa ku lahayn isagoo qaxooti ka ah hadduu doono marka soomaalidu hadda aad bay isula socotaa sidii loo maintain garayn lahaa oo midnimadeena iyo wadajirkeena iyo qadiyadaha waaweyn ee masiiriga ah siyaasadda hooseba ha lagu kala duwanaada haddii la rabe sidii loo maintain garayn lahaa waa howl noo taalla laakiin miidiyuhu dadaal badan ay sameeyeen inay sii xoojiyaan khatartan ay ka ilaaliyaan kiiska waa meel midda labaad international law ilkama laha markaan waxaan ka wadaa maxkamaddani ciidan ma laha ciidan ay xukumayso marka xukunka ridda ay leedahay soo fuliya ma jiro maxaan ula jeedaa taa annaga xaaladdan waa ka warqabnaa badda soomaaliya ee aan ka hadlayno sharikado kenya ee aan ka dacwoonayno kenya in laga saaro faraha kala baxdo sharikado shidaal oo kenya ay kontract siisay ayaa shidaal ka baarayay 3 sharikadood baa ku jiray baddaas dhulka baddaas ku beeganna amaba ugu soo dhow ee soomaaliya waxaa amnigiisa ilaaliya ciidamo kenyana KDF marka haddii annagu dowladnimo iyo dalnimo iyo ciidan iyo difaaca xuduudaheena iyo cidna inaan ku duulno iyo violence anu maha waxaan ka talinayo laakiin waxa weeye haddaan wuxuu ways wataane maanta haddii naloo xukumo hadda kenya hadday akhyaarnimo samayso oo ay tiraahdo mar haddiina laka xukumay annagu international loogan hogaansanaha waana ka baxnay baddi wal an guud waana sida aan rajaynayno haddii marka baddana loo xukumo awood aan ku tagno iyo ka warqabkeeda iyo xuduudaheeda ilaalinteedana annagoon dal kale ku xadgudbayn dalkan annagu aan leenahay aan ku difaacna haddaan aan lahayn awood aan ku difaacna haddaan aan lahayn
awood aan markabkii kalluumaysi khalada ka samaynaya aan ku qabanna aanaan lahayn awood aan markabkii shidaal ka baaraya ama ka qodaya aanaan joojin karin aanaan lahayn awood aan ku hor istaagno ciddii iyadoon permission naga qaadan dhex maraysa hadde waa dadaalkii iyo isu imaatankii iyo buuqii la sameeyey iyo kharashkii la galay iyo dacwaddii lagu guulaystay iyo xuquuqdii noo soo noqotay warqad unbay ku qornaanaysaa caawa waxaa la barayay mahmaha la yiri dajka waa ogaha deeq iyo dad kale laga yaaba inay yaqaanaan luqadaas mahmaha waxay leedahay la yiri ay yidhaahdaan xaashiyuhu waa dulqaad badan yihiin sababta wax walbaa lagu dul qoraya hadda xaashiyahaas keliya dulqaadkooda haddaan isku halaynayno inaan badda anagu leenahay laakiin anaan tegi karin marka waxaan u dan leeyahay waxa weye dowladnimadeenna in la adkeeyo ciidamadeenna in la adkeeyo daris wanaagga iyo sharciga iyo dalalka nala dariska aan wanaag kula noolaano waa mid waa waajib laakiin xuquuqdeenna inaan cududeenna ku ilaashano oo dalkii annagu aan leenahay aan difaacan karno cid aan permission naga qaadanna aanay see rabta ka yeeli karin waa inaan gaarnaa haddii kale annaga heeg nooma noqonayso dal iyo ciidan waadna mahadsan tihiin aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan intiina kasoo qayb gashay waxaan u mahad celinayaa inta qaban qaabisay si gaara labada buundo iyo dowlad ku nool iyo shakhsiyaadka aqoon-yahanada ah ee hogaaminaya waxaan runtii aad iyo aad ugu qiiraysanahay kuna faraxsanahay dadaalka aad samaynaysaan iyo isku xirnaanta iyo soomaalinimada waxa quruxdu ay tahayna waa taas caawa platform reerkaaga ah haddaad ku jiri lahayd ama anugu ku jiri lahaa xikmad kale ma hoyateen wax waddanka ay u tari lahayd ama soomaali kale ay u tari lahaydna ma laha soomaali ayaa nahay soomaalinimo ayaa waxna taraysa soomaalinimadaasna dowladdeenna ilaalinaysa in dowladdaas marka la dhiso oo qarannimada la dhiso dowladda markaan ku leeyahay hal madaxweyne maaha hal wasiir maaha waa dowladnimada soomaaliya waa ciidamadeeda waa sharciyadeeda waa baarlamaankeeda waa madaxweynaheeda waa mar walba cidda joogta sidii gacan lagu siin lahaa oo dalkeenna aan u lahaan lahayn cid idinka xigtaana ma jirto siyaasadda iyo dalka marka si guud waxaad ogtihiin idinku celceliyey jibriil isagana waa u mahad celinayaa deeq waa u mahad celinayaa aamine waa u mahad celinayaa cabdishakuur waa u mahad celinayaa cumar samatar waan u mahad celinayaa cabdirashiid waan u mahad celinayaa dhammaantiin waxaa idin leeyahay guuleysta iyo dhammaantiin inta kasoo qayb gashayba aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay ambassador yusuf garaad waqtiga aad maxaa la siisa maanta waa ognahay inaad daalinta busina tahay anigana waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo walaasheen maandeeq iyo Europe oo shalay qol igu soo jeeday ka hadlaya topican maxaa la dhahaa 3 saac qolkaas oo noo furnay and lot of maxaa la emotions ay dadkeenana tusayeen in terms of supporting ay marka horta walaalayaashan aad baad u mahadsan qolkaas noo furteen aadna ay igu soo dhaweyseen and possibility aad maxaa la maantana aad possible nooga dhigteen markaas ka bacdi waxaan jeclaan lahaa walaalyaal aad marka ugu horeysa aad tahay aad session yaashan imaanaysiin in aad follow gareyseen bridge buundo waxaan ugu talagalnay in aan topic-yaasha oo maxaa la dhahaa of interest to the Somali people in aan dad aqoon-yahan aan u keenno sidii aad wax uga barano tan ka bacdi haddii la dhaho next steps ahaan haddaan ka hadlayno waxaan jeclaan lahaa inaan arko every single one of you in a single tweet caawa ka dhiibto in terms of sessionkan saa u aragtay and mase your maxaa la dhahaa your kind of support aad siinaysid teamka oo deertaan hadda ka bacdi on Monday the 15th ilaa 24th March noo dagaalgalayo taasna waxaa taageeraynaysiin ICG Soomaaliya taas waxaa mahadsantiin next waxaan soo dhaweynayaa Cumar Samatar oo iyo maxaa la dhahaa oo maanta nagala wada qaatay anakoo bridge gareynayna gaabka between different clubs idinkoo iga raali waxaan u haystaa in lay fasaxay waa lagu fasaxay ambassador aad iyo aad baad ugu mahadsan waana idin macsalaameynaya aad iyo aad baa mahadsantihiin Yes, Ambassador, thank you. Thank you, Ambassador Wasiir. Waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waa mahad celinayaa walaalkay shaksi mina deeq Africa Professor Jibril Cabdirashiid iyo dadka kale ee panelka ka qayb qaatay bahda Bridge Buundo iyo bahda aniga ka tirsanahay ee dowladnimo ku nool waxaan
rabaa inaan u mahadceliyo inta badan waxaa jirtay doodii kale ee 3 beri socotay ee isugu imaanayeen dadka Soomaaliyeed ilaa iyo muddo 3 days ay socotay waa kooxda ayada laftigeeda ICG Fox oo ahayd badeena waa dhaxalkeena iyo dhiiggeena ayagana waa u mahadcelinayaa ayagaa fikrad iyo mataqaanaa oo ahaa isku imaatinkan ummadda Soomaaliyeedna waa shaqsi wax waajib ah oo shaqsi walba saaran difaaca dalkiisa mana la siyaasadayn karo waa idin mahadcelinayaa markaas walaalkay deeq iyo mina iyo shaqsi iyo dhammaan bahda Bundo Bridge waa mahadsantiin. I wanted to say a special thank you to our audience members. This has been a trending topic for the past couple of days on this app, but we really wanted to bring in a voice of authority, someone who's been there, someone who's been through the process that could give us some additional information and some well-needed context, because it's a topic that when it comes to obviously are something that is so dear to us. A lot of people have emotions and people might not be able to express their points clearly. So for us, it was really important to have the ambassador with us tonight. And I want to thank Professor Jibril as well. I want to thank Professor Jibril for being with us as well. And Deq, mic over to you. aad u mahadsantahay mina ambassadorka wuu naga tegay yes laakiin qolka we will continue qolka waa noo sii soconayaa dadka mic waa loo furayaa so we can get your feedbacks iyo waxaan ka baranay ambassadorka wuxuu nagu soo kordhiyey iyo situationka hadda waxaan la joogaa Professor Jibril Maxamed asigana aan ka faa'iideysano marka taasaan planka taas waa the next step marka Cumrow iyo Cabdinuur idinkana kusoo dhawaada waa mahadsantahay walaalkay deeq hal mar waxaan rabaa inaan soo dhaweyno walaalkeen Cabdinuur agaasimaha isaguna hadda panelka nagula soo biiray waa mahadsantahay soo dhawow. Okay, so waa dhawahay walaalkiis maxaa la dhahaa Jibril iyo Cabdinuur, if you can put some comments in haddii okay u tihiin waxaan jeclaan lahayn inaan dad kor u soo qaadno oo su'aalaha waxa ay qabaan oo waxa ka dhex guuxay in aan maqalno after this, and then waxaan jeclaan lahay maybe some inaan ka hadalno dadka shacabka maxaa qaban karaan in terms of social media. Is it wise in aan maxaa la dhahaa inaan ka hadalno topican social media heavily anaga xalay waxaan isku diiwaangelinay isku advice gareynayno qofka Soomaaliyeed qofka yaqaanaba and support on social media one hashtag aan isticmaalno aan maxaa la topican la face gareyno taasna waxaan ka dhihi lahayn waan jeclaan lahay and if that's a feasible action next step ahaatee. shaksi iyo mina iyo deeq iyo cumar iyo Professor Jibril waa mahadsantihiin waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iideysto inaan tacsi u diro qoyska iyo ehelada ay ka baxeen madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane marxuum Cali Mahdi Maxamed oo hadda lafteedu war aan helay la leeyahay xaaskiisana goor dhawey geeriyootay labadoodaba Allah u naxariisto. waxaa kaloo tacsidii tiiranyada la wadaagaya qoyska Janaan Axmed Jaamac oo ka mid ahaa dhalinyaradii xornimadoonka iyo gobonimadoonka kadibna ku biiray nidaamkii daakhiliga ahaa ilaa shaqeynaya taliyaha booliiska ka gaaray haddana wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska la taliye uu ahaa isagana Allah u naxariisto Muqdisho ku geeriyooday caawa. waxaa kaloo isagana maanta galinkii hore geeriyooday xildhibaan Bono wasiir hore ahaa xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Khayr u dambeysay iyo xukuumado kala duwan. dadkaas qiimaha badan naga wada baxay Ilaahay wada naxariisto. waxaana ka codsanayaa dadka kunkii xogaa gaaray halkan ku jiro inay faatixada u soo maraan ciddii ka qayb qaadan kartana madaxweyne Cali Mahdi marxuum Cali Mahdi madaxweynihii hore oo Muqdisho la keeni doono meydkiisana ciddii ka qayb gali kartay janaasada inay kasoo qayb gasho maadaama barabdiiq 3 maalmood ah ayaa calanka hoos loo dhigay iyo guddi aas qaran oo ay xukuumaddu magacooda intaba ay ka shaqeyn doonaan sidii loo weyneyn lahaa loona muujin lahaa doorkii uu dowladnimada iyo ku lahaa. marxuum Cali Mahdi wuxuu ka mid ahaa baarlamaankii 1968 dhalinyaradii soo gashay
ilaa iyo xilligaanna wuxuu aaday soomaaliyada kaalin mugl ka qaatay. intaas waa tacsida iyo runtii waxa noo yaala dadkeena muxuu ahaa indheer garadka ana waxaan alla subxaana watacaala uga baryaa inuu noo xifdiyo qof allaala dadkan haddaan idiin sheegaya dadka la midka ee hadda noolna waxaan idinka codsanayaa cid walba wax qori karta inay wax ka reebto dhaxal ka reebto. generationskaasna waa generationska runtii memoriga dowladnimada iyo noo hayay. marka bal waxaa laga reebo dad waxaan u badanaynaa dhalinyaro ah oo ama kusoo caqliyeystay ama ku dhashay dagaaladii sokeeye. intaasaan uga baxaya mawduucan haddaan usoo laabto kolley waxaan aad u dhegeysanayay khudbaddii koobneed ee danjiro yuusuf garaad oo ergada ka mid ah aan qabnaa inkastoo soomaalida ay dhahdo yani guusha iyo maxay ahayday libinta yani baqa lagu daraa oo inaan isdhigan oo aanan dhihin wallahi kenya waa ka wada adkaanaynaa laakiin muxuu si taxadar leh inaan kiiskaasna ula socono uguna duceyno dadka garyaqaanada iyo dadka sharci yaqaanada ee hawshan ku jira iyo dadka raacana hoosaan waxaan ka arkay hadda intaan scroll garaynaya dad badan oo lawyers oo hoos ku jira. marka dadkaasna in fursad la siiyo bal inay kiiskan wixii sharciga uu ka qabo iyo kiisaskii hore maxkamadda xukmisay siday u arkaan inay nala wadaagaan. marka discussion hanoo sii socdo waa idinkaga mahad celinayaa labada qole isbiirsatay the bridge iyo dowladnimo ku nool sida aad codkiina u midayseen. runtii xalay oo kale laba waxaa jiray laba qol afurnaa oo different audience ay ku jireen iyo dad kala duwan. marka sidan ha loo midayo cid kasta oo mawduucan ka hadlaysana waxaan jeclaan lahayn in dhammaanteen hal meel aan isugu wada geyno caqliyadeenna iyo maxay ahayday iyo gorfaynta hawshan. waxaan idinkaga tegayaa yaanan isu kala qaybinin mucaarad iyo muxaafad. xalayna waa ka sheegay boggii sheekadan ay ka socoto deeq iyo muxuu ahaa gabadhii walaashan ay gacanta ku hayeen iyo walaashan yurub waa beri. marka yaanan uga faa'iidaysanin hebelaa saxan iyo hebelaa khaldan, hebelaa ceel ku riday iyo hebelaa ceel ka soo saaray, dowladdii tagtay waxba kama qaban iyo midaan hadda joogto waa ka gaabisay. waxyaabahaas oo dhan waa political statements iyo wax kala eryasho. siyaasadeenna arrimaha gudaha iyo waxyaabaha soomaali ahaan aan isku jijiidi karno way ka weyn tahay arrintan. marka midnimaha la muujiyo intaasaan runteedu ku biirinaya. waa mahadsantihiin. waa mahadsan tahay walaalo. Professor Jibriil, fadlan soo dhawaa. walaal waa mahadsantiin dhammaantiin mar kale. cabdinuur waa mahadsan tahay. waxa aan rabaa inaan su-aal muhiim ahayd oo mar dhoweyto waxaan u malaynayaa walaalkii duraan inuu weydiiyey ambassador yuusuf garaad oo ahayd maxaa soomaaliya loo soo hormariyey inaan wax yar uga noqdaan rabaa. sideedaba nidaamka sharciga caalamiga ah waxa weeye haddii dhinacyada ishaya uu dhinac dood qabo oo ama dacwo keeno dhinacaasa laga rabaa inuu caddaynta keeno. haddii kaysaska ama ha ahaadeen kuwa madani ah ama ha ahaadeen kuwa dembi ah qof ay dowladdu dembi kusoo eedayso tusaale ahaan qofkaas isaga ah caddayn lagama rabo, dowladdaa laga rabaa inay ku caddaysato qofkii inuu eedi galay. haddii qofka uu haysto wax uu isku difaaco oo uu leeyahay aniga meeshaba ma joogin ma ihi qofkan waa wax kale, laakiin dowladdaa laga rabaa mas-uuliyadda ah inay caddayso cidda gashay dembigan. dhanka kale haddii madani uu yahay oo adiga iyo qof kale aad is haysaan ama laba dowladood, hadda dowladaha keliya ayaa isla tegi kara maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda. markii dowladaha ay isqabtaan bay ama isku hayaan dowlada geyn kartaa ay oran kartaa hana la kala saaro ama fikrad weydiin kartaa. laakiin dowladda wax keentay baa laga rabaa inay caddayso arrintan ay ka cabanayso waxa ay tahay inay xaq u leedahay, inay caddaymo haysato ay ku muujinayso in xuquuqdan ay iyadu leedahay oo dhinaca kalena uu ku xadgudbayo. dabcan sida waa ambassador yuusuf garaad sheegay, markii dowladda soomaaliya ay geenaysay dacwadan baddaas soomaaliyeed waxaa ku jiray shirkado shidaal ka baarayay
kalluumaysato dad badan oo runtii meesha ka qaraabanayay oo dowladda Kenya ay shatiyo iyo fasaxyo siisay ayaa meesha ku jiray markii dacwadii la geeyey wixii way inta badan way ka noqdeen baaritaankii iyo cabiraadihii iyo lambaray u yeeleen way ka shaqaynayeen marka dowladda Soomaaliya waxay ku doodaysaa waxay ahayd annaga iskala badaan xadkeena weeyaan dowladda Kenyana dhibaatay ku haysaa oo shatiyo ay bixinaysaa aan sax ahayn xadgudub bay wadaa cadeymihiina way geysay Soomaaliya marka maadaama ay Soomaaliya cadeymihii geysay dhageysigii baa la sameeyey Kenya waxay diiday markii horeba maxkamaddu inay gasho dacwada oo waxay tiri jurisdiction oo ma lihideen adinka arrintan waa arrin laba dal u dhaxaysa labada yadaa ka wada hadlayna maadaama dacwadii ay ka dhex furtay dood Kenya doodaas ay la timid in la qanciyo oo la ogaado waxa ay ku salaynayso weeyaan markaas ayada soo sheegay Kenya laga rabay inay doodo hormarin doodeeda oo meeshan aniga inaan imaadaba ma ahan bay ku doodaysay marka ilaa ay keensatay wixii looga baahnaa oo cadeyma Soomaaliya la weydiiyey wixii ay ka oran lahayd arrintaas markaas go'aan la gaaray Soomaaliya ku guuleysatay qaybta ayada ah oo maxkamaddu inay dacwada geli karto ayaa la cadeeyey hadda marka waxay maraysaa dacwadii Soomaaliya geysay oo wax la qaadayo oo waxa la xukminayo waa badii cidii lahayd Soomaaliyana dacwada iskala sidaas Soomaaliya ku horeysa oo lagu soo hormariyay marka waxaan rabaa waa maaragtay wada salaamaya insha Allah waan ku mahadsantihiin runtii tiimka labada group oo hawshan soo qaban qaabiyay walaalkii senator tiimkiisa oo maaragtay kooxda ICJ dowlad ku nool walaalahay shaksi iyo Mina iyo Deeq dhammaan waa idin salaamaya waan mahadsantihiin mahadsantahay Professor Jibril waxaan soo bilaabaynaa marka su'aalaheeni ay dadka audience ku jira ay haystaan marka fadlan Jamaal horta rules aan sagarayno qof walba mar rabo inuu dhaafo 1 daqiiqo iyo bar wixii su'aal oo weydiinayo daqiiqad ku soo kooba extensionkaas haddii adinku hadal ku dhex jirtiin hadlaysiin another 30 seconds hadlaysiin taasna timer baan idin sagaraynaa shaksi wax yaraan rabaa inaan clarify gareeyo waxaan la hadlay goordhow qaar ka mid ah ehlada madaxweynihii hore Allah naxariistay Cali Mahdi Maxamed marka waxay ay xaqiijiyeen wararka ay qorayaan warbaahintii social media lagu qorayo ay xaaskiisu ay dhimatay inaysan sax ahayn laakiin naxdintii geeridii ay kooma la gashay welina ay nooshahay marka ha loo duceeyo maamada khayr Allah insi amiin ilaahay caafimaad degdeg ah oo marka let's take a moment waxaan subinayaa 1 minute and 30 seconds haysteen first question waxaan bilaabaya Jamaal fadlan soo dhawaad walaalo waa mahadsantiin dhammaantiin akhyaarta waa idin salaamaya adiga iyo dad kale meesha ku jira iyo ambassadorkii horey halkan ugu casunayo hadda inaga tegay dhammaantiin agaasima Cabdi Nuur dhammaantiin waa salaamantiin su'aasheeda waxaa maaha mid legal ah laakiinse waxa weeye mid si guud xataa maadaama hadda uu nala joogo xataa Cabdi Nuur oo muddo media involved ku ahaa oo aan oran karno goorta laga yimaado dhanka siyaasadda xataa laftigeeda waa khabiir dhanka media oo kale adigu 10 sano meelaha kusoo jiray xagga capacity-ga dhisidda capacity-ga saxaafadda ahaan lahayd iyo raadinta xuquuqda iyo barista xuquuqdooda iyo kadibna noqday agaasimihii media oo madaxtooyada marka su'aasha si guud adaan Cabdinuur weydiiyo waxay tahay macnaha doorka saxaafadda ku leedahay sidii ay dadweynaha u bari lahayd oo kale macnaha meelaha mugdiga uga jiro kale maadaama hadda ay jiraan meelo badan dadka meesha ugu badan oo ay information ka helaan oo kale waa social media saa ognahay waxaa aad ugu badan waxa loo yaqaano misinformationka meesha labaad oo aan oran karno information waa ka helaana waxa weeye saxaafadda af Soomaali ku hadasho maadaama boqolkiiba dad 90 iyo dhowr ka badan oo Soomaalida ay ku hadlaan af Soomaali si luqado kale ku hadlin waxa ku adag inay meel kale wax ka soo fahmaan oo kale ama cilmi baaris kale sameeyaan marka saxaafadda Soomaali ku hadashana badanaa adigu muddo waxaan fiirinayay oo kale waxyaalaha qoraan waxa u badan xataa hadda u si fiirsatid oo kale
waxyaala ay saxaafadda dibadda ah kasoo koobiyaan oo kale saxaafad kastana waa la ogaan karaa dadka wax ku qoraya waxay leeyihiin ujeedooyinkaas ugu badnaato iyada wax danta ugu jirto sida waddankooda wixii dan u ah oo kale marka goorta saxaafaddii soomaaliya oo kale ay soo nuqulinayso waxa meelaha kale lagu qoro kale waxa niyad yana lagu jiraa ama wax sidaas oo kale ah marka taas si leg bay warbaahintoda ka qaadan kartaa inay dadka jihayso waa mahadsantihiin ma ka jawaabi karaa walaal cabdinuur kusoo dhawaa jamaal waa mahadsantaa walaalkay waa run inkastoo 6 bilood ugu dambeysay aanan ku shaqaynaynin doorka iyo ka shaqaynayay warbaahinta madaxtooyada oo walaalka cabdirashiid uu hadda ku magacaaban yahay booskaas haddana xilligii aan afhayeenka ahaa runtii waxaan xasuustaa caqabadda ugu weyn naga qabsan jirtay waxa Kenya iyo aan maraaya iyo arrintan ku saabsan badda waxaa jirta safar aan ku tagnay Nairobi exactly ma xasuusto laakiin 2019 bilowgeed inay hedan rajeynaya markii booq siyaasadeed uu bilaabanayay inta aan Nairobi u duulina waxaan qornay sababta mas'uuliyad socday prime minister ay u tagayaan maxay ahayd Nairobi inaysan arrimaha badda ku jirin laakiin de xiriirkii iyo xarkihii aan kala goosanay sidii loo isu dejin lahaa inaan maxay ahayd halkaa la tagno saxaafadda Kenya dhan waxay tabinaysay inaan waxyaabaha laga wada hadlay aysan ka mid ahayn arrinta badda laakiin taa cagsigeeda saxaafadda Soomaaliya inteeda badan waxay qorayeen inaan annaga been sheegayno oo waxa meesha loo tagaba ay tahay arrintii badda madaxweynaha inuu qaadan wadan yahay in wax la qarinayo sidaas la mid ah waxaan jeclaan lahaa caawa in uu ku jiro danjir Abkarbaale New York waxaan u tagnay shirki qaramada midoobay aniga waxaan ku jiray teamkii hordhaca meesha tagay 18 bishan tagay madaxweynahana 22 ku yimid marka aniga iyo danjir Abkarbaale ayaa waxaan kasii wada shaqaynaynay in kulan uu codsaday madaxweynaha Masar Cabdulfataax Asiisi oo ahayd inta aan guddoonka Afrika ee wareega ah oo sanadkiiba mar head of state oo Afrikaan uu qabto inta aan hayo ayaa waxaan rabaa inaan soo afjiro buuqa Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya Kenyaankan uu la hadlay oo ayaga dalab u dirsaday annaguna waa nala soo xiriiray dal Carbeed oo Muslim tihiin oo walaal ah buuqan uu idin saameynayaa nimankan waa niman idinka diblomaasiyad iyo xiriir badan idinka contacts badan idinka saaxiibo badan badda idin dambaysa normalization of relations hal la sameeyo 3 jeeran ergada Masar New York la fariisanay waxaan ku niri nimankan waxay rabaan inay ka macaashaan aragtida kaliya oo u rogaan inay ka dhigaan arrintii badda inaan kala hadlaynay maya waxay intiiba nagu adkeeyeen contactiyan la sameeyna waana wargelinay madaxweynuhuna wuxuu xiiseynayaa oo kaliya in xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya sidiisi lagu soo celiyo arrinta baddan halkeeda loo daayo adii back and forth saan isugu noqonaynay 22 madaxweynaha noo yimid taladeen wax guud Asiisi ku kala dhiman lahayn nimankan arka hadiiba uu ogol yahay oo uu raay yahay inaan wax qabsan korgoonin rabnaa in maxay ahayd aan kulanka aqbalno sidii baa marka kulankii ku aqbalnay madaxweynaha Djibouti markii dambe nagu soo biiray oo asagana runtii qayb ka ahaa anagu marka waxaan ku talagalnay is aragga kaliya Kenya inay rabto inay sarrifato oo ay pressure ku saarto waayo waxa ka fashilmay isku day ahayd in si Afrikaannimo ah loo xalliyo qadiyadan oo amniga iyo nabadda amniga iyo nabadda unionka peace and security commissionka oo nin Ismaaciil Shirgeel laho oo Algerian oo madax ka yahay ayay u gudbisteen codsi ah waxaan rabnaa in qadiyadda Soomaaliya
in lagu xaliyo si afrikaannimo ah marka tii waxaa dhacday wadamo 15 xubnood ka kooban yahay guddigaas inaan ka campaign garaynay oo wadamo hadda aan filayn inaan taageero ka helayno ayaa runtiina taageeray oo tooga ka mid tahay oo difaacay aragtida Soomaaliya ah in baddaan iyo arrimaheeda ICJ loo daayo oon qaaradda Afrika iyo komishiinadeeda inaan la dhex keenin muran labadan dal ka dhexeeya cadaalad adduunkana inay ku qancaan oo la support gareeyo marka Kenyaanku waxay ka dabaqtamayeen maadaama taas aan kaga soo adkaanay inay halkan haddana buuq kale ka furaan summitkiina waa la isugu yimid anagu waxaan aragnay dalalkii markaas non permanent iyo kuwii shanta ahaa intaba ayaan wareegaynay 3 maalmood oo shirku ugu xoogaraa oon arkaynay Vietnam ha noqoto muxuu ahaa wadan yiraahdo Latvia oo yar ha noqdo oo Yurub ku yaala wadamadii marka Security Council ka soo galay dhanaan sii shuqaansanaynaa si arrimahan haddii waxaan iyo meelahan lagu faaga in la diido marka kulankii markuu dhacay dulucda hadalkayga waxaa kulankii markuu dhacay hoolkii labadii madaxweyne markay ka soo baxeen statement sii daynay cadaynayso in wadahadallo garwadeen ka yahay madaxweynaha Al-Sisi in la isugu yimid waxa laga wada hadlana inay tahay dib u soo celinta xiriirkii iyo diblomaasiyaddii iyo xiriirkii ka dhexeeyay labada dan wixii muran ana halkaa lagu xaliyo wixii la xiriira kiiskaas baddan in ICJ inay taalayso haddana again saxaafadda Kenya oo dhan waxay qoraysaa ayagoo waliba aniga xiganayay in afhayaanka Villa Soomaaliya uu cadeeyay inaan arrintii badda laga wada hadlin laakiin Monica Jumca waxay qortay tweet ay leedahay arrimihiina waa la isku soo qaaday ay leedahay marka macnaha dulucdan u socda waxay tahay saxaafadeenna muddadaas 3 sano iyo barka ah nimanka ayna daba socdeen waxaan arkaynaa mar walba in naloo isticmaalayo saxaafadeenna laba qaabna naloogu isticmaalayo mana ahayn wax ula kac ah mid ka mid a waxay ahayd aqoon darro sababtoo Daily Nation waxay qoraysaa wax uu Peter Kagonje iyo dadka qorayaasha ah in hadda ka hor Donald Kibor in la dhihi jiraan filaya oo 2007 iyo 8 qorayay Soomaaliya hala annex gareeyo oo dhaxda inta laga kala gooyo wixii beledweynaha Hiiraan ka sokeeyana Kenya lagu wareejiyo wixii ka shaqeeyay Ethiopia hala wareegto dadkaas artikaladooda inta lagu soo turjumaa idaacadihii localka laga sii deynaa website-yada laga sii deynaya oo la buunbuuninaya halkii muxuu ahaa waxaas wax lahaa marka kama aha ayaga ula kac dalka ka heli laakiin wariyaha artikalkaana trendin oo iska wadwado arkaya uu soo koobiyeenaya wixii qoraal ka sameynaya wuxuu soo dhigayaa bartiisi mana journalist gareynaya wariyaasha oo dhan waa qayb ka mid ah tan kale waxaa waaye nimankan waxay nooga dheereeyaan dhanka sida waxooda iyo positionkooda loo difaacdo marba meelay naga soo gelayaan hadda maalmahan waxaa shidneed wax la yiraahdo Kenyaanku waxay aad u qorayeen dawladdu xilligeedii dhamaaday dawladna xilligeeda ma dhamaanay xukuumad iyo qof xukunka jooga la dhihi karaa mandatekiisii xilligan ku eg yahay wadamaduna doorashooyinku unbaa xukuumadaha lagu bedelaayay wadan vacuum intuu ka dhaco burburaayo oo from scratch laga soo bilaabaa ma jiro marka cudurdaaradii ugu dambeeyay ayayba ka mid ahaydba oo nimanka odayaasha ah meesha jooga waqtiga waa ka dhamaaday yaan la hadlaynaa ma dibna loogu dhiga dacwadan si ay waqti u iibsadaan kale oo maxkamad dib loogu dhigay iyo corona garsoorayaashii nooga dhacay waxaa kaloo u dambeeyay inay dhahaan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo testimony siin lahaa ayaa zoomku dhibaato ku noqonaya oo amnigooda khatar gelinaya marka mar walba waxay isku dayayaan ayaga inay steerinka leexiyaan oo maxkamadda ka leexdaan oo meel cilla iyo geed hoostii inaan wax ku kala goosano laakiin mar walba dawladdu waxay ku taagneed maya annaga waxaan rabnaa inaan meesha ku kala baxno waayo xukuumaddii naga horreysaa dacwadan geysay annagana waxaan ku dadaalaynaa wixii la soo bilaabay dhamaystirkiisii iyo in cadaalad adduunya lagu kala baxo marka waxaan ka wadaa wacyigelin ay u baahan yihiin wariyaasheenna meel walba ay joogaan in aan meel uga soo wada jeesano kiiskan badda madaxdeennana aan ku kalsoonaano muxuu ahaa dadka na matalaya iyo garsoorayaasha na matalayana
muxuu ahaa sharci yaqaanadana matalaya inaan ku kalsoonaano kuwa xitaa dacayad ka dhigaya iyagoo og inaan la bedelin looyaradii saddexda ahayd ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh ay qortay iyo kambanigii loo hayargareeyey inayna difaacdaa weli sidii noo difaacda haddana waxaa la qorayaa waxaa la bedelay garsoore waxaa laga eriyey qof waxaa lasoo bedelay safiir waxaa case manager ahaayoo caseka gacanta ku hayay qof hebel muxuu ahaa qof hebela lagu bedelay waxyaabahaasoo dhan waxba kama bedeli karaan habsami u socodka dacwadda waayo shaqada ugu badan waxa qabanayo waa tala bixin sharci waxa kale ee muhiimka waxay tahay ma jirto statement dowladda waxyaabaha aadka looga dadaalay ka mid ahayd oo wasiirada arrimaha dibadda Yuusuf Garaad xilliguu joogay iyo hadda wasiir Cawad markuu joogay iyo hadda wasiir Maxamed Cabdisaaq uu joogo yacni statement walba oo meel ka taabanaysa arrimaha badda oo dowladda Soomaaliya ama wasaaraddeeda arrimaha dibadda ka baxay ama madaxtooyadeeda ka baxday waxay martay shirkadaas oo fiirinaysa in wax un laga qalloocin karo advantage u noqon kara Kenya iyo casekeeda marka waxaa laga yaabaa dad fara badan hadda halkan ku jira inay mar walba question garaynayaan war madaxweynuhu muxuu mikrofoonka u qaadan la'yahay oo idaacadaha u soo istaagi la'yahay oo qadiyadda u difaaci la'yahay oo uga hadli la'yahay oo war soo baxa u dhihi la'yahay wuxuu u dhihi la'yahay waxay tahay kiiskan waa kiis sharci gacan sharciyuuna ku jiraa dad lagu kalsoon yahuuna ku jiraa looyarada hadda ka shaqaynayana waa the most successful lawyers qaarkood intaan annaga shaqaalaysiinin waxaa codsatay Kenya xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh wayna diideen waxay ku diideenna waxay tahay waxay ogyihiin haddii ay xagga ka soo saftaan argumentigooda inuu yahay mid jilicsan oo laga faa'iidaysan kara marka ayaga laftoodu waa dad sumcaddooda ilaashanaya weliba arrimaha maritimekii ku saabsan mar walbana waxay aadayaan dalkay isleeyihiin kiiskiisu waa xooggan yahay aadayaan marka walaalaha Soomaaliyeed ee wariyaasha ah ee xirfadleyda ah waxaan kula dardaarmayaa in maxay ahayday kiiskan aad maxay ahayday looga shaqeeyo sidii Somali Talk website-kii la dhihi jiray 2009 kiiskan usoo bilaabay uu u noqdaha u furay dad badan oo Soomaaliyeed aan xogta la socon si lamid ah in warbaahintu ay marna waa taariikh kaydin marna waa baraarujin dadkeeda inay baraarujiso maxay ahayday lagana fogaado waxyaabaha speculationska ah hebel baa halkan wax ka khaldaayay iyo madaxdeena laguma kalsoonaan kara iyo war qof doonaya qabrigiisa markii la kor istaagay in baddii buu bixiyey ama baddii buu ka tanaasulay ama wuu dayacay ma jiro madaxda maanta joogto iyo kuwii tagayna kulli waxay ilaashanayaan resourcigii dadkooda iyo carruurtooda ay lahaayeen waxay ilaashanayaan legacy-gooda iyo sumcaddooda intaa ka dhulka Soomaaliyeed ka mid ah inaysan bixin marka waxyaabahaas lagu mar walba lagu andacoodo ha laga hadlo iyo ha la soo baxa iyo yacni arrin sharci oo ahaday u baahan in aad looga taxadiro xitaa ereyada la isticmaalayo in lagu degdega ma aha aan u duceyno tiimka ambasadorada Baalle iyo ambasador Baalle iyo ambasador Yuusuf Garaad iyo injineer Saalix nin la yiraahdo oo runtii dadkii hawshan soo bilaabana ka mid ah dadka culumtan badaha iyo geoscience-ka aad ku yaqaan xitaa maabiska aan hadda haysano iyo maabka hadda mar walba aad aragtaan ay ku jira meelo badan baa runtii aad ugu dadaalay oo asad waddankan uu leeyahay dadkaas oo dhan ha loo wada duceeyo iyo dadka kale ee runtii ku weheliya xeerlaaliyuhu ka mid yahay iyo sharci yaqaanadaba in loo duceeyo marka warka waa ku fogaaday laakiin dadkeena aqoon-yahanada ah waxaan rabnaa inaad uga faa'iidaysaan qalinkiina wax badana qabiil la qoray oo kala qaybsanaan wax laga qoray oo hadda WhatsApp gruubyada hadaad gasho waxa laga hadlayo waxa waaye doorasho ma dhacaysa hebel baa khaldan dawlad baa xil ka dhacay laakiin energy mid la mid ah in lagu bixiyo in wax laga qoro waxyaabaha hadda annaga macaawinayana waa mahadsantaa waxaan ku daray waxyaabaha annaga hadda macaawinaya waxaa ka mid ah Daniel Arap Moi 19 ay Kenya gudbisatay oo waliba UNCLOS iyo hay'adaha UN-ka arkiibyahooda aan ka soo helnay waxa waa midkaan hadda ku doodayno in khadka meesha uu ka soo galay xuduudda inuu toos straight line ahaado equidistance ahaado hore u socdo 1979kii waaye waxay Kenyaanku geeyeen Kenyaanku marka waxaa ka khaldamay oo u baahan ayada lafteeda inaad baaris ku samaysaan waxaa jira isfaham iyo banaanka inay ku xalistaan kiiskooda Tanzania iyo Kenya
kenya tanzania xuduudday leedahay badaa ka maqan tanzania inay uga maqan tahay laakiin annaga hadda meeshii MOU-ga aysan runtii baarlamaanna marin ayna sharciyoobin oo bannaanka ku ekaatay ayagu bannaankii kusoo heshiiyeen wayna ratify gareeyeen maxkamadda xuduudeeda waxay tiri saasaan u xadaysannahay marka dhibaatooyinka kenya haysta waxaa ka mid ah waxay rabtaa maadaama ayada iyo tanzania u ilduuftay inaan annaga halkan u ilduufno mana shaqaynayso waxyaabaha ay galayso laan loogaan noqonayna waxba kama jiraan ilaa 100 kilomitir oo space ah oo ay badda u furantay heli doontaa haddii annaga laynka siduu ku socdo tooska aan naloo xukumo laakiin ayagu waxay gadayaan xuduudibu waa naga xirmaysaaba continental shelf beyond 200 nautical miles ma helayno marka waxyaabahaas misconceptionka iyo beenta ay kenya faafinayso wariyaasheenna waa inay ka taxadaraan ummadda usoo bandhigaan qalbiga u qaboojiyaan maxay ahaydey dadkeena soomaaliyada kalena inaan ducada kusoo kaalmayno dadka sharci yaqaanadaana qaab sharciyeed inay uga falceliyaan oo ay arrintan u muujiyaan waa mahadsan insha allah aad u mahadsantahay cabdinuurow next waxaan rabnaa inaan siino walaasheen umulqeyr waxaa ku xigi doonta huda sidoo cabdishakuur sheegay please 1 minute ilaa 1.5 minute kusoo kooba su-aashiina iyo hadday comment xataa tahay aad u mahadsantihiin aan ka faa'iidaysano professor jibriil maxamed iyo agaasime cabdinuur si ay su-aalaha noogu jawaabaan ee dadkana wax ugu kordhiyaan aadama And in terms of timing, kind of hadeertaan waxaa la marayaa just time check inaan soo bidno and 11:55 p.m. la marayaa Somalia time marka I'm guessing dadka qaarkoodna tired bay dareemayaan so xataa gastiga haddii aad soo koobitaan siin answerkiina xataa waa fiicnaan lahayd aad baad u mahadsantihiin cabdinuur that was beautiful walaalo aad ugu mahadsantahay explanation dheer waa u baahneen kulligeen inaan fahmno dhinacaasna umar khayr abay soo dhawaa waan kasii soconayna umul khayr ma joogto huda walaalay soo dhawaa waan dhawahay walaal salaamu calaykum waan salaamayaa faraxsanahay inaan habeenkii labaad ka qayb qaato doodan su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo jibriil su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo cabdinuur anoo raba inaan ka faa'iidaysto waqtigayga su-aasha jibriil aan weydiinaya waxaa weeye abaay adoo raalli ah waa badannahay hal su-aal leh ka dhig midda kugu muhiimsan hal gastiga weydiiye adoo raalli ah codkaagana kor u qaad adoo mahadsan walaal okay su-aasha aan weydiinaya waxaa waaye jibriil la xiriirta badda waxaa jira u doodaya badeena wax information fiican waxay yihiin iyo meelaha ay kasoo jeedaan information fiican ma ka hayno hadda information fiican ba waxaa noogu horeysa platformkan waxaan rabay markaa inaan ogaado kuwii hore waxaa ku jira tay gabar soomaaliya oo lawyer ah marka kuwan miyaa ku jira qof soomaaliya oo lawyer ah laakiin aan ku jirin oo ayaga dhan ay wada ajnabi yihiin ilaa intee kalsooni la egaan ku qabnaa inay mataqaan si fair ah annaga noogu bahalkeeyaan aan ku bilaabno professor jibriil marka cabdinuur doonta insha allah professor jibriil intuuna gelin qof kasta oo rabo informationka looyarada hadda iyo baankooda filean hayaa oo laga qoray case oo profilkayga tag inbox iisoo dir linkigan kuusoo diraya sida adiga xataa naftarkaaga research aa u samaysid casekaana adiga naftarkaaga cilmi baaris aa u samaysid intaad dad kale un awar ka dhegeysanay aad waa mahadsantihin professor jibriil soo dhawa waa mahadsantihiin huda waad ku mahadsantahay inaad maaragtay ka fakarayso sida dadka kale soomaaliyeed uga walayaan ama niyadda ugu hayaan ciddana matalaysa garyaqaanada matalaya soomaaliya waa laga leeyahay dalka maraykanka oo runtii maaragtay leh sumcad aad u weyn shirkaddaas waxaa la dhahaa forihag garyaqaano waxaa ka tirsan maaragtay aad u waaweyn oo badda iyo maxkamadaas dacwadeeda gala yusuf garaadna hadaayay ambasadorku waatuu ka hadlay guulahayso profile iyo hawshada heli karaysaa oo waa wax qarsoodiya ma aha marka
saddexda garyaqaan ee ku jirta ma aha kuwa ay haatan ama ay shaqaalaysay dowladdan ama ay qabatay, waa dowladdii xasan sheekh xilligiisii sidii loo qabtay ayay weli hawsha waxaa nin ka mid ah tiimkaas aniga shakhsiyan oo aan arkay wuxuu igu yiri all I have is my integrity. Hadda waxa kaliya igu haray oo naftaydaba ka haray waa sumcaddayda. Marka waxay u egtahay inay nafta ag dhigi doonaan wax walba oo karaankooda aan ay samayn doonaan, maaragtay aysan ku sumcad xumo aysan meesha kala qasadkoodu yahay koley shaqadooda iyo ethicskooda waxoodana sidaasay dhigayaan. dabcan marka waxaa lagu celceliyey tiimka berigii hore waxaa ka mid ahayd gabar walaasheena, sida igu maqaalaa kolley warka waad un heli doontaan. dadka markuu yahay shaqooyin iyo howlo iyo dana adduunya ku taxalluqa muddo badan ka horna way ahayd markii ayada ahayd. shaqooyinka qaarkood markaad qaadatana inaad si private ah ama si gaar ah aad adigu dad u matasho ama aad dalal u matasho mararka qaarkood suuragal maaha. marka waa aan dareemayaa dareenkaas jira oo walaasheen muna inay meesha ka maqan tahay ah, laakiin ayaduna xumaan uma maqna, dalkeedana ma nicin, dana un iyo duruufo gaara oo shaksiyana weeyaan. laakiin tiimku waa si buu u dhisan yahay. qoftaas oo keliya oo wayna imaanayaan duruufaha hadda way isbedelayaan oo sidii hadda ay uga shanqariyey waxa waaye cali faqi oo ka mid ah tiimkan oo ragga ku magacaaban meesha maxkamadda keeska ku qoran ka mid ah. xanuun baa la soo darsay ilaahay caafimaad hayo. marka qofka hadday wax ku yimaadaan in la sharaysto oo la dhibsado oo wixii la dabagediye maaha. niyadda khayr ha loo sheego, xusnu danni ha la sameeyo. dowladduna way dadaalaysaa, garyaqaanaduna way dadaalayaan. tiimka meesha loo diray Soomaaliyeedna dad wanaagsan oo kalsooni badan lagu qabo weeyaan. waana mahadsan tahay. waa mahadsan tahay Professor Jibril rasmi Cabdinuur walaal oo kusoo dhawaad. Do you have any comments? ما wax comment samahayo waa dhegeysanaya barnaamijka hadii ay wax su'aalo ayib insha Allah waa mahadsan tahay. Okay. Yasin walaalo Jamal iyo Huda haddaad audience ku noqon kartiin waa mahadsantihiin. In the next round haddaa weli kor joogtiin anaa idin celinayo. Yasin walaalo soo dhawaa. Yasin walaalo soo dhawaa. hal qof iga hormari waxaan gacanta ku waaya baafo walaalo soo dhawaa. baafo walaalo soo dhawaa. Okay. mar labaad ma joogtid Dr. M Sadiq soo dhawaa walaalo. Dr. Sadiqo soo dhawaa aan ka faa'iideysano Dr. Sadiq research oo ka qoray perspective interesting ah oo aad u fiican wuu hayaa. marka Sadiqo fadlan noo soo kordhi walaalo. Okay. fartuun walaalo soo dhawaa. fartuun walaalo su'aal ma qabtaa? Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. adoo raali codka haddaa kor u qaadi kartidna waa fiicnaa lahayd.